السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع هذا هور أصير إحجاله وهان عدسنا يا هور عير إن أنك هور مرصدا أنو أركي فرصة إن أنك دكتور صوبته أهم وحاجر ور حالي شالي أنت لقى شيء أو باهي يور كلو لقول لماني أو أنو أركي إن رأيي إن أنك دكتور كاس وحوها meel ayaa la soo geliyay madaxweynaha Dr. Xasan Sheekh Maxamuud waa inuu ka toobad keenaa dilkii 10kii culumo isla markaasna waa inuu raali gelin ka bixiyaa mowduucii shalayna waxaa laga yaabaa in si kale loo fahmay isla markaasna qofkii qoraalkaasi kulay nin sheekh ana qoraal ma ahayn kulay hadal uu ahaa meesha soo geliyay marka waxaan kaga jawaabay iyadoo kooban أن الرئيس الصومالي ليست عليه التوبة. دكتور حسن الشيخ محمود واجبكما إنه كتبت كانوا الدم بأوسن قلين ولا تزر وازرة وزر أخرى وحكى رجرته سأولا سعطان إلهي سبحانه وتعالى قرآن كلها إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين كانوا مجرمين madaxweynihii iyo ra'iisul wasaarihii iyo ciidankii iyo dawladda oo dhan dambiilayaal ay ahaayeen waa madaxweynaha waqtigaas joogay waaye ma ahan sida dadka qaarkood u fasirteen madaxweynaha hadda jooga shaqo kuma lahan ficilkii fal dambiyeedkii dhacay shaqo kuma lahan arintaas inaan waxaan rabay in aan bayaamiyo midda kale waxaan rabaa markii aan soo baxay wiil yar oo aan dhalay wuxuu yiri aabba Soomaaliya u socota waa it's very dangerous place luqada Englishku ku hadla kula socotaan ilmaheena waxaan dhahaa waa u socdaa markaasuu wuxuu dhahay waxaan maqlay you going to jihad markaas aan dhahay yes jihad aan u socdaa markaas wuxuu igu yiri you will die markaas aan dhahay yes you won't come back ma soo laaban doontid waxaan dhahay ducaan akhrisanayaa hadda oo ducada qarax aan u bixiyay marka qaraxa ka cabsan ma igu dhici doonaan insha Allah ducadaas nin sheeqan ka maqlay oo dhahay ali maaragtay ninkaasi ilaahi subhanahu wa ta'ala haka maaragtay karaali noqdo wuxuu yiri waxaad akhrisataa markii meelaha noocaas oo kale aad joogto inni atabarra'u min hawli wa quwwati wa altaji ila hawlika wa quwwatika wansurni wa la tansur alayhi وأعني ولا تعن علي واهدني ويسر لي الهدي إلي دعاء سنكون دعاء إن شاء الله دمانتين وبدبادنا وحان روانية الجهاد إن لني مادنه جهادا كجرنا تاسر بين الحسوسية نمن كان لها الشبهات كدان هوري أسيد حقا وقتنا أون تايما كنا معنا يا شيخ محمد آدن إن شاء الله نمن كان سدح موضوعي أذيك سدان مركي لها أيان مد كمد horteedu ka dhahay oo fikirkaasi khawaarijta aaminsan saddex ay adeegsadaan ka badan ay adeegsadaan saddex ka badan laakiin saddexan soo qaadanaya waqtiga dartiisa ku waxay dhahaan dastuurka oo Soomaaliya waa dastuur gaaleed ku meesha ka bilaabaan sidaa daraadeed waxaa waajib ah maadaama dastuur gaaleed uu yahay waxaa meesha ka dhalanaya xukun islaam kuma xukumaan waxay soo qaadanayaan aayadii quraanka man lam yaxkum bima anzala Allah فأولئك هم الكافرون أيضا تفسير كذا أن أقنع حتى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه تفسير عجيب إنه كفر صريح حتى ده هيهدوجر حاكم آمن سن حكم الإسلام كأنه واجب يهي لكن أن حكم وحده هي كفر دون كفر كل شيء قد قيب وكشيء هذا وقالي ما هنا كفر الدين تلقى جب حي ويواجب يسئل الدلو أما أريد بمجل حتى marka mas'ala sahlan ma aha sida daraadeed waxay aaminsan yihiin kow dastuurka inuu dastuur islaami ahayn ani marka waxaan maadaama rajul shariica wal qaanuun aan ahay waxaan akhriyay ilaa 20 dastuur ku dhawaad markaan daraasaynay dastuurka Soomaalida dadkii ka tala bixiyaan kamid ahaa dastuurka ma dhameystirno oo ognahay laakiin waxaan rabaa culimada halkaana oo macallimiinteeda ay ku jiraan shuyuukhdeeda ay ku jiraan inay ugu waafaqi doonaan dastuurkan inuu yahay dastuur islaami bal ani waxaan gaaray dasaatiirta oo wadamada muslimiinta hadaad akhrisaan wuu ka fiican yahay isagoo qabya ah
afar daliil kaliya aan usoo qaadanayaa nimanka dhallinyarada qaarkood dhegaysanaya hadda oo aan huba inayna dhegaysanayaan aan rajaynayaa inay ka soo tagaan ay ka soo cararaan khawaarijta ee dib ugu soo laabtaan shacabkooda iyagoo rumaysan oo aaminayo dastuurka inuu yahay dastuur islaami ah kow waxaa ku qoran afar qodob ayaa jira oo dasaatiirta muslimiinta aanan ku qornayn xitaa kuwa ugu fiican oo dastuurka sacuudiga ku jiro aan ku qornayn kow waxaa ku qoran shareecada islaamka inuu yahay masdar asaasi ah oo shareecada islaamka waxaan ula jeedaa qawaaniinta waddanka oo dhan laba waxaa ku qoran in wixii ka soo horjeeda shareecada islaamka oo qawaaniin ah oo waddanka la keeno nol inay yihiin macnaheeda wax kama jiraan inay yihiin okay laba daqiiqo kusoo koobayna insha allah qodob kale waxaa jirta oo saddexaad oo dastuurkeena ku qoran wadamada muslimiinta dasaatiirtooda kama helayso waa qodob cajiib badan qodobkaasna madaxweynaha sheegay shalay qodobkaas wuxuu leeyahay diin aan ahayn diinta islaamka laguma faafin karo waddanka soomaaliya dastuur ahaan waaye wadamada kale dastuur ahaan uguma qorna boolisi ahaanay u samaysteen oo la hooskeenaya shareecada qodobka kale waxaa ku taalo maqaasidda shareecada in la waafajinayo wax alle wixii xeerar ah oo waddanka uu leeyahay ama uu samaysan doono hadday ka hor yimaadaana qodobka kale ayaa la raacayaa koo horta taas way aaminsan yihiin waa been marka waxay aamineen sababtaa dastuurkeenna markaan intaas aan soo taxo waa dastuur islaami ah marka warkay aaminsan yihiin sax ma ahan inay jihaad ku qaadaanna ma ahan dowladda iyo shacabkeeda laba waxay aaminsan yihiin xukuumaddan inay tahay xukuumad cilmaani ah oo macnaheeda ay tahay xukuumadda madaxweynaha prime ministerka inay wada aaminsan yihiin fasludiin can siyaasa warkaasna run ma ahan dhegaheenna waa ku maqalnay shalay madaxweynaha wuxuu sheegayay oo ahayd in waddankan uu yahay waddan shareecada islaamka lagu dhaqayo boqolkiiba boqol heerka dhaqitaanka ama fulintiisa waa wax dood la gelin karo laakiin maadaama aan nahay dowlad horumar samaynayso oo step by step iyo tadaruj iyo intaasoo dhan loo baahan yahay waqti ay qaadan doonto culummaday u taalaa sheekh axmed cabdisamed siduu dhahay hadaytu oo kale say active u noqdaan ay ula falgalaan dowladda oo markaasi hawshaan ay u dhaqan gasho qodobka ugu dambeeyo waxay aaminsan yihiin in lala jihaado dowladdan iyo dadkeeda sababta waa gaalay keensteen su-aal imaanaysaa jirto marka iyaga ku wajahan oo ah yaa sabab u ah gaalada inay dhulkan timaado iyagoo hubaysan iyadoo aan ognahay qaar ka mid ah muslimiintii degdegtay ama ha ka ahaato cilmi yari iyo waxay doontaba iyadoo markay isbideen in maaragtay awood islaamiha ay timid inay ku dhawaaqeen in dowladaha dariska xitaa ay wada qabsanayaan marka yaa invite gareeyey oo keenay in ay yimaadaan quwado shisheeye oo hubaysan intaas iyadoo kooban waa inta ay ku doodayaan waxaa maaragtay loo daliishan karaa in dowladdan lala jihaado iyo dadkeeda ugu dambayntii waxaan rabaa in oo aan ku soo ganaado haddii aan rabno maadaama hadda dadka aan waxbarayno in saddex ay iskaashadaan in lama horaan ay tahay culummada waxay ku celceliyeen labo ani waxaan aaminsanahay saddex hadday iskaashadaan dadka in wax la bari karo wax la fahamsiin karo la wada gaari karo cuquushooda saddexdaas waxa waaye dowladdii oo culummada ay la socoto anagoo markaasi ka amaqaadayna aayadda ahayd yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu allah wa atiicu rasuul wa uli amri minkum uli amri minkum waa garanaysaan culumaad tihiin waxaa lagu fasiray dowladdii iyo culummadii oo wada socota culummadina dadkay baraysaa yucallimuuna annaasa ashariica dowladdiina yunafiduuna ashariica waa labadii door waaye dowladdii shareecaday dhaqangelinaysaa waa waajib ka saaran culummadina shareecaday baraysaa marka dowladdii iyo culummadii hal qeybaa jirto marka aan lagu celcelin waa dadkan nagu wareegsan waa wariyaasha waa miidiyaha saddexdaas hadday wada shaqayso al-shabaab al-khawaarij aan dhehe waa la afjari karaa waxaan ku soo gabagabaynayaa walaalkayga aan daqiiqad aan ka xoogaya waxaan ka hilmaamay wuxuu dhahay wiilkayga yar dadka aad la dagaalamaysaan muslimiin ma aha miyaa markaasaan waxaan dhahay they are s g markaasuu dhahay maxaa waaye aabba s g waxaan dhahay waa somali gangs somali gangs mataqaanin haddii la fasiro gangs waxa waaye maraykanka markuu way yaqaanay isaga uu fahmayaa gangska waxa waaye kuwa wax dhaca
وحدله نحريس aan lahayn sidii madaxweynaha ninkii noolaha oo kale oo masaakiinka ah oo gacan la qabto ay toogteen Soomaa waa gangis waay marka magaca la siinayo al-shabaab xitaa magac qurxoon waay lama siin karo kow sheekhi shalay culimada qaarkood Sheekh Abdurrahmaan waxa maleena oo dhahayay xitaa khawaarij ma ahan sifooyin oo waa way dhaafeen marka waa gangis ana waxaan dhihi lahaa marka madaxweyne xasan sheekhna uu sheegay waxaan dhahay magacan al-khawaarij hal sharciyeeyo official ha noqdo laakiin waxaan dhihi lahaa khawaarij oo gang ah lagu daro والله أعلم. ما شاء الله جزاك الله خير. أدبر أمها سنتها دكتور حسن وحن رجينا